shirka wada xaajoodka shuruucda muhiimku ah arrimaha maamulka maaliyadda dalka geedi socodka hanaanka deyna cafinta iyo sidoo kale diyaarinta iyo turxaan bixinta miisaaniyadda dalka ee sanadka 2023 ayaa xubnaha guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee baarlamaanka dalka waxa uu uga furmay magaalada Kigali ee xarunta wadanka Rwanda waxaana shirka furitaankiisa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow gudoomiyaha guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka xildhibaan Maxamed Faarax Nuux ayaa ugu horeyn furitaanka shirka ka hadlay waxa uu ka qayb galayaashu faahfaahiyay ujeedada shirkan mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka oo si rasmi ah shirka u furay xubnaha guddiga ee shirka ka qayb galaya kula dardaarmay inay xoog saaraan ajandayaasha shirkan waxaana sidoo kale sheegay in baarlamaanka Soomaaliya uu muhiimad gaar ah siin doono arrimaha miisaaniyadda dalka marka waxaan rabnaa inaan la xisaabtano wasaaradda maaliyadda khabiirka nala joogo ee dan lagu magacaabo asagana waxaan ka rabnaa in waxa asaga aqoontiis tahay inuu noo sheego kadibna xildhibaanada su'aalo badan ay ka keenaan aqoon iswadaarsi meesha uu ka dhaco muddadan isbuucan aan uu naga soo baxo warmurtiyeed oo ah in miisaaniyaddii aan hagaajinay shuruucda kale ee la xiriira sidoo kale iyagana aan dib u eegno saasaan waddankeena ku hormarino marka xildhibaano aada u mahadsantihiin shaqo adagaa noo taallo shirkeennii ama tababarkeennii maantana waa inuu furan yahay sidoo kale gudoomiye Cabdullaahi Cumar Abshirow ayaa sheegay in baarlamaanka kalfadhigiisa labaad fadhiyadiisa hore waxyaabaha la horgeyn doono ay ka mid tahay miisaaniyadda dalka ee sanadka 2023 baarlamaanka waxaa la furaa 15 bish labada aqal waqtiga aan haysana markaas markii la furo waxa waaye 15 November ee dambe iyo December waa ogtihiin in miisaaniyadda ilaa ansixi la rabo waa waqti aad u kooban waa baarlamaanka tobanaad wayna soo martay duruufaha noocaas oo kala ah in miisaaniyadda isku duudub loo keeno maalmaha ugu dambeeya December kadibna la dhaho hal ansixiyo iyadoo aan la eegin oo guddiga maaliyadda uusan dib u eegin baarlamaanka sagaalaad dhici jirtay baarlamaanka tobanaad nagu dhacday haddoo baarlamaanka tobanaad aan nahayna wadadii aan ku soconaa marka waa iska gaari karnaa anaga gudoon ahaan anoo hadda gudoonka matalaayo markii baarlamaanka la furo ama maalinta baarlamaanka la furaayo waxaan soo jeedinaynaa in miisaaniyadda maalinta ku xigta la keeno oo loo soo gudbiyo labada aqal ee guddiga maaliyadda shirkan ayaa maalmaha uu socdo waxa ay ka qayb galayaashu ka doodi doonaan shuruucda muhiimku ah maamulka maaliyadda dalka geedi socodka hanaanka deyna cafinta iyo sidoo kale diyaarinta iyo turxaan bixinta miisaaniyadda dalka ee sanadka 2023